madaxda dawladda ay Hiiraan u tageen howlgalka Hiiraan inay dhiirigeliyaan waxaan leeyahay cadaalad sameeya howlgalka Hiiraan waqooyiga kaliya kama socdo galbeedkana waa ka socdaa cid kasto moodaysa shabaab inaan la diriir karin shabaab waa urur yar oo argagixisa haddii banaanka la isugu tagana aan wax galaynin fara ku tirisa cid walba gumaysi intay ku jirreed nolol xayaa ku noolaato cadawga ha iska dulqaado ilaahayna wuu garab galayaa cadaalad sameeya waqooyiga waaba tagteene galbeedkana taga waxaa loo baahan yahay dawladdu inay dhiirigeliso dadka fahmay shabaabnimada in la dagaali kara waxa weeye la dagaalamay shabaab markii ayaga iyo shacabkii fahmay in shabaabnimada lala dagaali karaa ay fooda isdareen ceebtooda banaanka timid dadkani waxa ay mudan yihiin in la dhiirigeliyo waxa ay fahmeen shabaabnimada in la dagaali karo waxa ay iska diideen sikawaad in laga qaado waxa ay diideen caruurtooda in la askareeyo deegaanada galbeedka Hiiraan ay kula dagaalamayaan waxa kamid ah Farlibaax sida caag sibiri eeridaad wajab meesha la yiraahdo Xaaji Nuur meesha la yiraahdo sayidka dooyaale tii barakadii teeg urur intaas aan ka bixinay alxamdulillah ilaahay baa ku baadsan qabiilkaas tijeelo la yiraahdo madaxweynihii hore Hirshabeelle xitaa dhowr jeer waa ka hadlay waa soo hadal qaaday waxa ay 10 sano ku dhawaad dagaal kula jiraan shabaabnimada waxaan leeyahay wasiirka gaashaandhigga saraakiisha ciidamada haddaad u baxdeen inaad dhiirigelisaan howlgalka shabaabnimada lagula dagaalamayo waqooyiga iyo galbeedka Hiiraanba isku si u booqda waa inaad galmudug tagtaan oo degmada baxdo iyo degmada wasiila gobolka mudug waa inaad booqataan ayadana wasaaradda cadaaladda social media waa xaq u dir shacabka Soomaaliyeed waxa ay doonaysaa inay fahmaan shabaabnimada in la dagaali karo shacabka Soomaaliyeed waxa ay doonaysaa inay fahmaan inay sharaf ku noolaadaan gudnimo iska diidaan gumaystii wadankan haystay iska bixiyeen Talyaani Ingiriis Soomaali waa iska saareen waa la dagaalameen shabaabnimadana waxa la rabaa inay meesha ka baxdo fikirka waxa weeye shala raggii hoggaanka u ahaa maanta dawladda federaalka ay xeelalka ka hayaan horana ay uga soo qabteen Cabdulla xarunta Marwe waa albaabka farxadda lamaanaha fadhi ma yaal heetii alla waa gaar dadaalna waa mahuraane xarunta Marwe waxa aad ka helaysaa daweyn baaritaan iyo aqoon la isku haleyn karo dhaqaatiirtuna waa Soomaali kaana tageen oo mar walba kula jooga dalka dadkayga yaaba wax bartay ajnabi xaan ka jira si aad u hesho ubadkii aad u baahnayd insha Allah hadda la xiriir Marwe Fertility Center oo ku taala degmada ay leeyihiin wax ka jira male waa baadil kuwa maanta hoggaan waxna ay doonayaan biri inay waxa weeye dawladnimada Soomaaliya hoggaankeeda ka mid noqdaan maantana qaraxyada ay soo dirayaan iyo shacabka Soomaaliyeed gumaadayaan wax loo dul qaadan kara ma fikirkaas waxa la doonayaa bataatan bayno meesha ka baxo shacabka Soomaaliyeedna ay fahmaan in la diriiri karo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed kuwada fahmay shabaabnimada in la diriiri karo waa inaad jeebka u furtaan waa inaad gacanta u furtaan waa inaad keed koobka u furtaan waa inaad waxa weeye wax walbo oo waxa weeye dhiirigeli kara waa inaad u samaysaan haddaad doonaysaan waxa weeye shabaabnimada in la soo afjaro daawada baladu aragtidaada commentiga nugula wadaag muuqaalkaana sii share garay oo la garay si uu gaaro shacab ay qof ku nool qaaradaha Ameerika iyo Yurub ma ku dhiban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha haddaba intaas oo dhan waxa ka xaqabtiraya application-ka Payc oo ah adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto family-gaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga goobtaada shaqada